بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan warbixin gaaban ka siiyo bulshada Soomaaliyeed maanta oo taariikhdu tahay 17 bisha 2022 waxa hogaanka baarista dambiyada qaybtiisa waaxda la dagaalanka tacdiyada ka dhanka ah haweenka iyo caruurta ay si ku jirto wadaniyad ugu wareejiyeen muwaadiniin Soomaaliyeed oo caruurtooda horay uga soo dhuntay ka maqnayd oo ay gacanta ku dhigeen taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay ugu wareejiyeen dib u mideeyeen qoysaskooda ilaa iyo 3 caruur ah oo magaalada Muqdisho ku maqnayd muddo eheladoodan ay la'aayeen balse taliska booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan waaxda tacdiyada haweenka taliyahooda oo maanta ku wareejiyay ehelkooda 3 caruurta ah ayadoo oo loo maray qaab ay ku jirto ka taxadirid wanaajin iyo xafidaad caruurtaas Soomaaliyeed oo horay u dhunsaneed balse gacanta ku hayay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed muddana ay gacanta ku hayeen kadib markii ay geliyeen raadin iyo baafin ehelkooda si dib loo mideeyo waxa kamid ah caruurtaas Maxamed Ali Faarax oo 12 sano jir ah iyo Mus'ab Maxamed Xasan oo 12 sano jir ah asagana iyo Maxamed Cabdullaahi Cawil oo 7 sano jir ah kuwaas oo horay ugu maqnaa ehelkooda maanta dib u la midoobay kadib markii ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu ka shaqeeyay dib u mideynta qoyskaas oo wax badan u tartay familkii ay ka maqnaayeen caruurtaas taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu ku wargelinayaa bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan guud ahaan dalkaba haddii ay caruur ka lunto goob kasto aad joogto fadlan wargeli xarunta booliiska ee kugu dhow haddii aad aragto caruur baadi ahna fadlan ku soo wargeli xarunta booliiska ee kugu dhow si ehelkooda loogu baadigo maadaama ay aad u tawayaan waxaan rabaa in halkan ugu mahadceliyo hay'adda SWDC hay'adaas oo taliska booliiska Soomaaliyeed ka saaciday in caruurtan la xifdiyo la xanaaneeyo inta ay muddada waalidkoodii ka maqnaayeen oo ay u qabteen xanaaneyn intii ay waalidkooda ka heli jireen in la mid ah waaxda tacdiyada ka dhanka ah haweenka iyo caruurta hogaankeedii oo ay xukunto laba xidig leh talisa abtidoon iyo hay'adaas oo iska kaashaday xafidaadda caruurtaas muddadii ay gacantooda ku hayeen waxaan rabaa in halkan ugu mahadceliyo waaxda tacdiyada ka dhanka ah haweenka caruurta booliiska Soomaaliyeed iyo taliyahooda laba xidig leh talisa abtidoon iyo hay'adda SWDC oo ayadana ka caawisay haweenkaas iyo caruurtaas in dib loo mideeyo lana xafido intii ay waalidkooda laga helayo marka waxaan idin leeyahay bulshada Soomaaliyeed goob kasto ay joogaan haddii aad aragto caruur baadiya fadlan ku hagaaji xarunta booliiska kugu dhow haddii ay caruurtaasi aad ka maqan yihiin fadlan tag xarunta booliiska kugu dhow si loo baadi goob caruurta maqan waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed guud ahaan goob kasto ay joogaan haddii ubad ka lumo fadlan tag xarunta booliiska kugu dhow haddii aad hesho ubad baadiyana fadlan gee xarunta booliiska kugu dhow waa sida ugu dhaqsiyaha badan ee lagu heli karo waalidiintaas caruurta kala maqan si loo mideeyo qoysaskaas kala lumay